xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo ay maanta ku beegnay maalintiisii labaad ee ololaha kaambeyga doorashada ayaa xisbigu wuxuu soo bandhigay taageerayaashiisa kuwaas oo kula hadlayay xafiiska guud ee ku leeyahay degmada Garadag waxaana kala soo qayb galay madashani qaal waayeel waxgarad iyo badiba taageerayaasha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ku leeyahay degmada Garadag ee gobolka Sanaag waxa ugu horeyntii hadalka iska kala dambeeyay waayeel iyo waxgarad iyo qaar ka mid ah murashaxiinta golayaasha deegaanka kuwaas oo hoga tusaaleeyay in maalinta 31 May codkooda ugu deeqaan musharax injineer Maxamuud Saalax Cabdi oo ka mid ah murashaxiinta golayaasha wakiilada ee gobolka Sanaag uga sharaxan xisbiga muxaafidka ee kulmiye kaasi oo ay astaantiisu tahay gudini sida weyna aad ugu soo baxdeen inaad taageertaan xisbiga kulmiye musharaxiinta ka sharaxan ee golaha baarlamaanka oo uu taagan yahay Maxamuud Saalax Cabdi iyo golihii deegaanka oo 9 xildhibaanba ay qayb ka yihiin waxaan aad iyo aad ka mahadcelinaynaa sida aad xisbiga u taageeradaad ugu haysaan oo wax yar inaga xigaan maalintii codaynta sida la ajligeed haddii aan la idmo waxaan wadardaaran ku dambeeyay baynu maanta siinaynaa waxaanu sameeynaa dadaalka ugu wanaagsan ee suurtagal ka dhigaya inuu soo baxo musharaxa golaha wakiilada iyo musharaxiinta kale ee golaha deegaanka iminka waxaynu u taaganahay waa kaba dambaystii qaashu qarqarada ay soo gaadhay iminka qarqarada waa markii dagaalka ugu xumi jira qofkaan dadkaan xarbaan tahay ama dadka waayeelka kaararka yaan laga xadin oo loo bedeli haddii maryahan aynu sidano runtu waxay noqonaysaa fartay noqonaya kaarkay noqonaysaa aynu ku foosayno ama wax ku taransanayno ama ku soo baxaynaana waxa weeye calaamada godinta iyo calaamada golahayaasha deegaanka xusbi xaakim baynu nahay dowladdii baynu ka wakiilnahay ha la dulqaato dadka aadin xagxagan doona ee doonaya inay arbush dhaliyaan iska ilaaliya codka ku ridno oo farta aan leegano gudinta soo gudinta kuubsan maysaa waa maqlaysaan haddana dardaarankiina waa maqlaysaan yaan laydin khiyaanay yaan wax kale laydiin sheegin dhammaan waxaanu leenahay aynu gudinta kuubsanno codkeenna mudanaya shaqeynta xisbiga kulmiye waxaan maraynaa way dhowdahay xilligii doorashada sidaas baa la taagan yahay anigu waxaan ka leeyahay ergu ku hadlaya afka musharaxiinta xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka waxaan leeyahay maanta diyaar baan idinahay inaan waxidin qabanno waxaan maqlayaa dad xisbiyada ku jiro oo ku ololaynaya waxaan jirin iyo waxaan waddanka ool oona guurtida u soo duul hebelow markaan baarlamaanka soo noqdo rinta guurtidaan ku siinayaa rag u soo noqdo waaweyn oo aan ku oga aqoon ayaan maqlayaa oo waxaa lagu soo tiirka lagu soo gooyey ama carabaha ha joogaan ama yurub ha ka yimaadaan ama ameerika ha ka yimaadaan waar been dadka yaa loo sheegay wax ku cusub maaha degmada Garadag iyo shacbigeedu inay xisbigooda kulmiye taageeraan oo taageero mugli siiyaan Garadag waxa weeye kulmiye bakala maarmaan oo isku mid waxaana ku rajaynahay iyadoo hadda xilli gabagabaa la marayo oo waxba aanay harin oo 3 iyo 2 ka harsan tahay inay fartooda ku hubsan doonaan xisbiga kulmiye musharaxiinta ka sharaxan oo ugu horeeyo musharaxa Maxamuud Saalax Cabdi iyo waxa weeye musharaxiinta golaha deegaanka oo anigu aan ka mid ahay iyo rag kale baarlamaanka ee degmada Garadagna waa Maxamuud Saalax Cabdi oo gudinta weeye hanto kursiga golaha baarlamaanka ama kursiga golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo halkan iyaguna taagan 9 xildhibaan oo iyaguna u ordaya ama u tafaxayda sidii ay mar hore haran lahaayeen golaha deegaanka ee degmada Garadag waxaan dhammaan dadweynaha ama taageerayaasha xisbiga kulmiye ka codsanayna in ay codkooda siiyaan dhammaan musharaxiinta uu hoggaanka u yahay Maxamuud Saalax Cabdi oo ah calaamadiisu ay tahay godinta codkoodana ay la hubsadaan aanay la seegin waxaa ogtihiin
inuu yahay xusbil xaakimkii iyo halkii laga soo dhaansanayay ama loo aroorayay inaynu fartayna maanta ugu wiilno degmada Garadag oo aynu siino xildhibaan Maxamuud Saalax iyo 9 xildhibaan la sharxan soo taasoo ma ogin waxa weeyaan degmadu waxay u baahan tahay inaynu maanta fartiina ugu wiilisaan way soo dhamaadeen wixii marmarkii iyo meelihii kale way soo dhamaadeen cidina meel aan xusbil xaakimka uma socoto cid walba way garanaysaa meesha dadka degmadu ku jirto waxaana aad inay xusuusinayaa inaydin moogaan maalinta aad sabka ku jirtaan sida maanta oo kale ay soo bixisaan ee koob iyo soddon meeyta soo camirnay ayaynu guusha u camiraynaa u haranaynaa inagoo ku hubsanayna haddii ilaahay nagu simo koob iyo soddon meey calaamadda astaanta gudinta oo ku hubsanaysaan astaanta gudinta waxay gudin kaloo musharaxyada gar adag leeyihiin golaha wakiilada ma jirto haddaad tahdo Maxamuud Saalax Cabdi iyo haddaad tahdo gudinta wax laga yaabaa dadka gudinta way iska wada qaybsan yihiin oo qof yar qof waa la garanayaa muraadibna dhankiisa musharax injineer Maxamuud Saalax Cabdi ayaa dhammaanba taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ugu baaqay in maalinta 31 May ay tahay maalinta ay codkooda ugu heelin doonaan musharax injineer Maxamuud Saalax Cabdi maanta waa dardaaran waa maalintii ugu dambeysay soo baxeena wixii hadda ka dambeeya waxaynu diyaar garoobaynaa sidii aynu qof walba meeshii uu codka ku lahaa u gaari lahaa ee uga codayn lahaa waxaan u baahannahay in qof kasta xil iska saaro sidii uu isaguna u codayn lahaa ciddii u baahan in la caawiyona uu u caawin lahaa ee xisbigeenna ka mid ah hadday tahay dadka aan waxba qorin hadday tahay dadka waayeelka hadday tahay dadka dhallinyarada cid allaale ciddii caawin u baahan qofka kale ee garanaya ee xisbigeenna ka mid waa inuu caawiyaa oo u sheegaa sida uu u codaynayo innagu waxaynu u baahannahay inaynu si nabada ku codayno waxaynu u baahannahay inaynu si dadnimo leh aynu u codayno inaynu nabadgelyada ku dadaalno waxaad samaynaysaan qofka aan garanayn ama wax qori karayn ama ay ku adag tahay inuu wax qoro guddoomiyaha goobta jooga ee komishanka ayuu odhanayaa waxaad ii calaamadisaa calaamadda gudinta Maxamuud Saalax iyo xildhibaanka golaha deegaanka ee isagu rabo inuu u codeeyo membarkiisa intaas buu sheegay warqaddu haddii ay xariijintu ay dhaafto halka ay ku beegan tahay Maxamuud Saalax Cabdi astaanta gudintu ay ku beegan tahay hadday dhaafto warqaddaasi waa warqad xumaatay oo aan laynoo tirinayn si aan warqaddaasi inooga khasaaroobin oo codkaagu u khasaaroobin waa inaad ku hubsato haddaad wax qorto inta yara xidhan inaad isku tallaabta ku hubsato haddii aanad awoodayn ama ay kugu adag tahay inaad halkaasi ku hubsatona guddoomiyaha goobta 31 May iyo calaamadda